sida caadiga calool istaaga waxaa lagu qeexaa saddex xaalad marka qofku midkood uu isku arko ama iga wada jiro uu isku arko. waa mid haddii qofku isbuucii saddex jeer uusan musqusha aadin oo saxaro xaggeeda u aadin oo isbuucaas wax saxar la'aan oo wahay waxaa loo yaqaanaa calool fadhi. xaaladaas qofkaan inay jirto calool fadhi ayay ka dhigan tahay. qodobka labaad haddii qofku uu dhigayo saxaro adag waxay ka dhigan tahay qofkaan inuu ku jiro xaalad la yiraahdo calool istaag ama constipation. qodobka saddexaad sidoo kale hadduu majiir sameynayo oo saxaradii qofka iska riixayo ayadana mataqaan waxay ka dhigan constipation waxa afka qaad loo yiraahdo. maxaa keeni kara calool istaaga? inta badan waxaa la sheegaa in loo aaneeyaa calool istaaga biyo cabka qofka oo aad u hooseeya. haddii qofku biyo cabkiisu aad u hooseeyo waxay inta badan keeni kartaa in saxaradii ay weydo mataqaan jileec tirada badnaa kadibna qofka mataqaan calool istaag uu yimaado oo mindhiciradu inta badan markii biyo badan ay nuugaan ay saxarada xogaa ay jileecdaa. haddii markii qofku uusan biyo badan cabin calool istaag ayay keeni kartaa. sidoo kale qofka oo aan dhaqdhaqaaq badan sameyn ama jimicsi aan sameyn sababtoo markasta qofku uu dhaqdhaqaaq sameeyo mindhicirada waxay sameeyaan wax la yaqaan peristalsis ama inay aruuraan kadibna mataqaan dhaqdhaqaaqaas qofka uu ka caawiyo in saxaradii ay banaanka aado. sidoo kale qofku inuu isku celiyo saxarada mararka qaar waxaa dhici karta dadka qaar inay sameeyaan wax la yiraahdo in markii ay saxara qabato intii suuliga ka aadi lahaayeen inay isku celiyaan saxarada. taas waxay keeni kartaa in saxaradii meesha adkaato kadibna qoyaanka dib looga nuugo kadibna qofka saas calool istaag uu ku sii bato oo saxaradii mataqaan meesha ku adkaato. sidoo kale sabab caafimaad ayaa keeni kara. soo qofka hadduu qabo raago kale sida xanuunka hypothyroidism ama thyroidka nooca dhacsan oo kale sida sonkorowga oo kale haddii mataqaan ay jiraan. sidoo kale xanuun ku dhici kara xidhmayaasha ama mindhicirada oo waliba la xiriira neerfayaasha sababtoo neerfuhu waa midka dibka keena oo dareenka u keena mindhicirka waaye. haddii xoogaa gaabis oo jiro waxay keeni kartaa sidii la rabay is wax noqon waayaan oo peristalkii mataqaan peristalsis bes oo ka baxo. sidoo kale isticmaalka tirada badan ee iron iyo daawooyinka qaar kamid dhiigkarka oo kale iyo xanuun baabi'iyaasha waxay keeni karaan iyaguna in calool istaag uu yimaado. haddii inta badan calool istaagaas aan la xalin oo qofku uusan dhakhtar booqan ama uusan biyo badan isticmaalin ama yacni uusan iska xalin maxaa ka dhalan kara marka calool istaagaas haddii uu muddo sii jiro qofku muxuu isku arki karaa? khatarta ka dhalan karta maxay tahay? kow baabasiir ama waxa loo yaqaano hemorrhoid inuu dhasho. hemorrhoidku ama baabasiirku waxa weeye mindhicirada dabada u dhawaa inta badan maadaama intra-abdominal pressure ama cadaadiska caloosha xaggeeda ka jira oo aad u badan saxaro ay meesha ku xayiran tahay in xiidadii ay sameeyaan in dhiig badan ay hayaan sababtoo dhiigga jirkeena wuxuu u samaysan yahay wadnaha midka ka yimaadana hoos u aadaan wixii hoos ka yimaadaan kor ay soo aadaan. marka dhiiggii dabada kasoo tegi lahaa waxaa dhacayda maadaama caloosha xoogaa culays badan oo ka jiro in dhiiggaasi mataqaana meesha uu kasoo tegi waayo kadibna xiidadii meesha marar badan ay sameeyaan. marka baabasiirkaas loo yaqaan baabasiirkaas ayaa imaan kara. marka sidoo kale waxa loo yaqaan anal fissure ayaa imaan karta ama dilaac sabab la xiriirta saxarada qofku iska riixayo kale meesha ay sii marto kale kadibna dilaac ay ku sameeydo. waxaa kaloo sidoo kale dhici karta mataqaana in saxarada qaar ay ku dhigto ay ku adkaato mindhicirada dhexdiisa kale qaybo kamid ah oo loo yaqaano ficker implication. sidee lagu xalin karaa marka? xalku muxuu yahay marka? inta badan waa in qofku uu ku dhiiradaa inuu isticmaalo biyo badan oo isticmaalo ilaa maalintii 3 litir la sheegaa ama ugu yaraan inuu isticmaalo waxa la yiraahdo mataqaana 8 ilaa 10 koob oo biyo inuu isticmaalo rabaa. sidoo kale waa inuu isticmaalaa waxyaabaha dalaga ah oo qolofta leh oo buunshada leh inuu isticmaalo waaye. waa inaad masagada isticmaashaa, waa inaad mataqaana digirta isticmaashaa, waa inaad isticmaashaa mataqaana galleyda, waa inaad sidoo kale isticmaashaa qudaarta cagaaran, waa inaad sidoo kale isticmaali kartaa qamadiga. inta badan baastada iyo bariiska la isticmaalkooda tirada badan iyo hilibka tirada badan la isticmaalayo waxay inta badan soo deji karaan calool istaag inuu yimaado. sidoo kale waxaa muhiim ah qofka inuu sameeyo jimicsigaas wuxuu suurtagelinaysaa hore usoo sheegnay maadaama waxyaabaha keenaya qaybka ee socod la'aanta iyo mindhicirada dhaqaaq badan aan sameynin in qofku jimicsi uu sameeyo si jimicsigaas uu suurtageliyo insha Allah tacaala in mindhiciradii dhaqaaq sameeyaan. sidoo kale waa in qofku isticmaalo markuu dambeeyo waxyaabaha caloosha jilciya ee laxativeska. laxativeska waxaa kamid kuwa dabiiciya kamid ah sida qofku inuu saliidaha qaar isticmaalo sida castor oil oo kale inuu isticmaalo saliid macsarada oo kale cuntada ku darsado kale waxba caloosha jilciya oo caadi ay kamid yihiin. haddii inta suurtagal noqon weydo waa laxativeska daawooyinka isticmaasho sharooyinka kiniyaasha oo dhakhtar ku qoraa insha Allah tacaala. intaan kusoo koobnaa barnaamijkeena maanta waxaan noo balan insha Allah tacaala in calool istaaga ka hortagno maadaama inta badan calool istaaga uu keeni karo baabasiir iyo yani anal fissure ama dilaac dabada ku yimaado kale iyo uu keeni karo yani markaas ku dadaalan biyo cabka iyo inaan isticmaalno cuntada mataqaana qolofta leh oo xashirta leh insha Allah. Assalaamu calaykum.